السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadlaynaa maayirnimadii Hargeysa lagu kala baxay gaar ahaan beesha Garxajis Yaasin Cumar Yaro hadlay iyo taariikhda halka taala ee cadaanka ah waan dhowreeri ka oranayno sida oo kale shaqaale dawladda hoose ooyaya oo leh maayir hanaga tigin maayir adiga naxal oga maayir adiga mushaarka noo kordhiyay bal dhowreeri baan iyagana ka oranaya halkaana waa idin soo dhigaya ugu horeyn arrinka hore haddaynu ku horeyno bal hadalka Yaasin Cumar Yare ila daawada iyo in maayirka u tartamaya dawladda hoose ee wiiwa isagana insha Allah dhisaynaa good job waqtiga nasiibkii la qaaday ee labada qodob lagu qoray ee maayirnimada anigii walaalkay hankaygi lagu kala saarayay laba waraaqood baa la tuuray walaalkay bay ku raacday wuxuu ninkii inanka garti baa laga helay ma qaatay waan qaatay wuu qaatay iyo waan dhalay wixii halkaa ka dhacay baqti nasiibka ahaa labada waraaqood walaalkay wixii ilaahay xaggiisa ka qoran cid ma baajin karto aniguna nin mabdiis isbedbedel ma yihi walaalkay baan maartay ku bogaadinayaa ilaahay mardu nasiibkiisii siiyay waxaan leeyahay aniguna walaal hambalyo daawteen baa rajeynaya waa ninkiina Cumar Yare oo u tanaasulay wiiwa halka waxaan arkay dhalinyar hadlaysa sida oo kale tanaasulkan dhowreeri baan ka oranaya horta anigu waxaan u arkaa in halka xaajidu ay yara weyd ka yara noqotay oo ay ahayd tabcan in arrinkan aad looga fiirsado oo aad loo lafaguray ahayd ayaan anigu aaminsanaa qaabka wax loo qabtay hase ahaatee waxa weeye haddii sidan la gartay anigu wiiwaaban hadda laga bilaabo wataa mar haddii ina Cumar Yaraba uu wiiwaa wato anigu ina Cumar Yaraan watee haddana wiiwaaban wataa marka xisaabta Garxajiska dhexdeeda la eegayo waxa weeye reerku waa ka soo jeedaa laan dheeranimo iyo gobonimo marka lagu faanayo waa reeraha ugu laan dheeraysan haddaan reerka koobaad ahayn waa ka labaad Cabdi Ciise ka labaad ma yeelayaan waxa weeye guriga ugu soo daataan baan ayaa ka baqanaya waxa weeye meeshan deganina waxa xaafadooda waxa weeye adigu waa reeraha ugu tirada badan ugu tayada badan beelaha reesha Qasaxaaq iyo beelaha Garxajisba haddii aan wax yar dhalinyarta meelaha ka hadlaysaan aan wax idinka sheego Faysal Cali Waraabe inuu buurta lagu soo gowracay Faysal Cali Waraabe waa Cabdi Ciise nimankii Cabdi Ciise waxay dhawaar manago inta dhacniba maanta la xisbeeyay meesha ka saaraysan haada leeyahay way qaateen haddana bahasha waynu wadnay waynaga ceelafoyn tagnay waa tireeda halka wixid waxaynu gelinaynaa ka Cabdi Ciise ka hor odeeya Cabdi Ciise haddana waa ku odeeyay oo adkii Hargeysa laga siiyay dee waxa weeye baqayb bay ku lahaayeen ka marka Cabdi Ciise waa reerka sida la dheeraw ah waa reerka sida Garxajisnimada waxa weeye iyo ehelnimada iyo Soomaalilandernimada iyo waliba sandaladaba waa reerka sidaas haddii wiiwa maanta uu in Cumar Yare u tanaasulay waxaan u arkaa guul baan u arkaa iyo gobonimo waliba waxa weeye waa la galbinaya inta uu maayirka noqonayo qofka Saciid Garxajis ka leexdaana biyihii Saciid maaha waa yacyaco intaana waa leeyahay de Garxajis sida ogaada in maayirnimadii Hargeysa sida ay tahay de waxa tanaasulay waa Isxaaq Arre marka oo jifo Saciid Garxajis kamid ah macnaha lama gaarsiin karo halka qaasinka waa Isxaaq cidda tanaasushay marka si guud loo eegana waa Saciid Garxajis cidda tanaasushay magac iyo sumcad iyo waxa weeye wanaag ayuu Yaasin Cumar Yare inoo soo kordhiyay waxba dhalinyartay meelaha ka qayrina ninka ragga inaad mafac ka heshay inaad magac mafac iyo ninka ragga mid mafac baa laga helaa midna mafac iyo magac baa laga helaa midna nacasnimo laga helaa iyo doqonnimo iyo taariikhda baabiyada oo ina gumeed xun oo wuxuu noqdaa
dee sacsaca ina cumar yare taariikh baynu ka helnay maanta haddaynu siciid garxajisnay boqolka sane soo socota waxaynu odhanaa waa inagii waa u tanaasulay halkaa iyada ah taariikh wanaagsan bay waxa weye inoo sameeyey ninkaa ina cumar yare iyo arrin aynu ku kaftabi karno iyo arrin ciidagale kula garnaqsan karo candhaba waa xubin marka maanta haddii ninka ciidagale waamusay inaan u tanaasulay oo siciid garxajis uu tanaasulay habaryoons u tanaasushay oo taariikhdan ina cumar yare inoo sameeyey waxa weeye waa arrin wanaagsan weeye waa gobonnimo laakiin nacasku garan maayo marmarka qaar darajo inaad hesho inaad magac samaysaa ka wanaagsan arrinkani waa doqoni ma garatay waana gobonnimo waxa weeye mar kale waxaan ku celinayaa anigoo waxa weeye garxajiskiya isxaaqiya habaryoonistiya cabdale isxaaqiya waanu taageersanay arrinkaa dhalinyarta meelaha ka hadlaysaana cidna ma matasho cidna waxa weeye afkooda kuma hadasho annaga gobonnimo noo qabsoontay waa arrin siciid garxajis oo dhan gobonnimo ah waa arrin hargeysa gobonnimo ah waa arrin waxa weeye meel la saaray weeye arrinkaasi meel buu ku tiirsan yahay meel baa lagu ogiyay arrinkaa waxa weeye arrinkaasi isagu waa halkaa mar kale waxaan ku celinayaa ninka siciid garxajis wii waa ka leexdaa biyo xalaala maaha waa ninkaa dhis haddii aad yacyacood tahay waxa weeye kuma sheegayo haddii aanad nasab ahayna kuma sheegayo laakiin haddaad biyo xalaala tahay ninkaa wii waa dhis ninkaa cabdi ciise laandheeraha boqol jeer ba cabdi ciise inoo tanaasuleyni intaas waa halkaa bal waxaad ila daawataan oohinta ka dhacaysa magaaladii hargeysa iyo shaqaalihii bayla daawada saddex bilood iyo camal laan jirnay iminkana 27 kan qaadanaa xitaa uu noo kordhiyey milyan iyo 500 buu naga dhigay halkii salteelka 700 ay qaadan jireen boqolkiiba boqol noo roonyi waayo dee qofka kaliya maanta dib meesha joogada ma garanaysa annaga hor walba naga warhaya oo isaga dee maanta haddii uu tagana dan ina daawateen baan rajeynaya waa ninkii maayir mooga sidaasaa loogu ooyayaa sidaasay shaqaalihii ugu ooyayaan sidaasaanay dowladda hoose ugu baahantee maayirnimadu waa tartane waar ninka dambe iman doonow dhalinyartaa danyartaa ee shaqaalaha ah ee xamaalanaysa waar waxa weeye xaqooda sii wax yar waxaan ku celinayaa maayirnimada hargeysa waa xarun isaaq waa xarun dad ehela waa xarun walaal weeye bahashan doorashada la kulaylinayo wax saxa maaha waxaan aaminsanay inaynu doorashada qaboojino waxaan aaminsanahay inaynu bahasha ayna aada u fogeynin ayaan anigu aaminsanahay macnaha marka aan anigu leeyahay ninka ayaan laga leexan dee macnaha waxa loo degayay beelbeel iyo de qabiil baa wixii meesha wax lagu wadaaba markaa taas dee waxa weeye ninka waxa weeye runta isdiidsiyaana waxa weeye waxba ma helo markaa waxaan aaminsanahay arrinkaa mar kastana waxaan aaminsanayay in hargeysa xarun isaaq tahay aan tartanka la kulaylin si wanaagsan lagu galo ninkii helana loo hambaliyeeyo intaasaan leeyahay